dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay waa laga helaayo wadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaageen noqon loo hawayay kiinoo hagaageen noqon loo hawayay kiinoo hagaageen noqon loo hawayay noqon loo hawayay kiinoo hagaageen noqon loo hawayay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة الصوماليات ملك السواد جوغدان ولاليال كو سو دوادا برنامجكات سوغيسين oo ahay soo dhaweynta sanadka cusub ee ah 2022 iyo aan ku sameynay macasharaamays sanadkii hore 2021 walaalayaal caawa barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay qaybta koowaad waxaad ku arki doontaan magacii qowmiyadda banaadir oo loo bedelay magaca qowmiyadda reer xamar. tan koowaad caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo anoo la hadlayo qowmiyadda reer xamar. qowmiyadda reer xamar qowmiyadda reer xamar waayo berigii hore waxaa la dhihi jiray qowmiyadda reer banaadir reer banaadir laakiin ma dhici karto in hal magac lama qafood inay qaataan. waad la socotiin magacan banaadiriga ama qowmiyadda banaadir wuxuu soo jiray wakti dheer laakiin 70-kii markuu kacaanka dhashtay ayuu u bixiyey gobolka banaadir. horey waxaa la dhihi jiray munushibiyo waa ogeydeen. marka ilaa haddana gobolka banaadir waa caasimadda soomaaliyeed muqdisho. okay marka aniga waxaan ra'yi ahaan soo jeedinayaa in magacan la dhaho banaadiri ay leedahay gobolka banaadir. marka banaadiri waa koox. marka sanadka cusub waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan dadkii la dhihi jiray qowmiyadda banaadir maanta wixii ka bilaabda oo ah bisha 1 January 2021 inay isticmaalaan qowmiyadda reer xamar ayagoo ka tali jiray min kismaayo ilaa balcad oo banaadir la dhihi jiray. intay ayagas ku maqan yihiin ayaa lagu maqnaay. hadda waxaa noo soo hartay 2 degmo oo ah degmada xamarweyni iyo degmada shingaani. marka sidaa darteed waxaan u sheegayaa dowladda soomaaliyeed maanta waxay ka bilaabato in aan qaadanay qowmiyadda reer xamar. kaasna waxaan ka soo qaadanay xamar iyo xamar daye. marka wax kastoo adduunka aad sameynaysid waa inuu lahaadaa reference. banaadiri ana la dhihi jiray yaa qaati gobolka banaadir. okay waxaan qaadanaynaa xamar iyo xamar daye. marka waxaan qaadanaynaa maanta wixii ka dambeeyo qowmiyadda reer xamar ee ku nool ama oo ku kala nool degmada shingaani iyo degmada xamarweyni. taas meehaan ugu baxay ogeysiiskaas ama hambalyadaas. tan labaad walaalayaal waad la socotiin sanadkii la soo dhaafay waxqabadkeena ugu weynaay ugu yaabka badnaay wuxuu ka mid ahay haddaan soo qaato kow waad la socotiin waxyaabihii oo sanadka hore lasoo dhaafay oo taariikhda ummadda aan u dhaafnay. madaxtooyada imahaynaa dhagaxaan ku soo gabaynaa waa jajabiyeynaa haddii ragtiin halusku yimaado
naagaheena u diraynaa 20 sanaa soo haysane ninkii jidka soo maro waa la tusaa agteena ninkii soo maro kitaabkii ilaahay aa la soo qaatay calaa kursi waa saameedan wixii ka socda waa maqlayseen kulli nasiib daro laakiin macluumeedii waa taqaaniin wuxuu soo saaray arrin oo yaab leh dadka dhihi jiray kuraastan iyo xildhibaanadan iyo bahabahadan waxaan soo ogaanay hal beel ama hal xildhibaan ka tirsan xamarweyne ilaa 9 qafood ilaa 8 qafood oo qarsoodi inuu ku diro waxbarasho hal reer shingaari si fiican u fasiro ama inta u qaado ama inta u qaado aday ku jirtaa ilaa 20 ruux 15 10 25 18 17 4 5 xisaabtaad qaado inuu asagana turkiya u diray waxbarasho yacni jaceylka heerkaan gaarnay sanadkii lasoo dhaafay 2021ka inaan heerkaas gaarno waa hal qabiil iyo hal qabiil waa khayaano qaran muu baxay marka caqligeena nasiib daro saas ayuu naqday maxaa la sameynaa laakiin cawad waxaa kaloo idin sheegaa hambalyo ayaan idin hayaa oo cajiib leh oona aad iyo aad wax loogu farxa ah oo weligiina adinka iska dhaafee soomaalida aan arkin laakiin in loo baahnaay in la tuso soomaalida kulli horey waxaan leheen calankaan sharafta leh min aadan cabdulle ilaa kacaanka okay kacaanka wuxuu dhalay calamadii gobolada maxay dhaleen calamadii degmooyinka suaaladiida okay 21 sano kadib waa tii dhacday dagaalkii sokeeyaha soo maa okay waxa la socdo hanti wadaag waa la iska tuuray dowlad federaal ah la keenay oo ku hoos jirto dowladdii kacaanka weli stasa musico waad la socotiin dowladdii kacaanka markay burburtay oo dagaalkii sokeeyaha u dhacay maanta waxay tahay 31 sana laga joogaa maxaan ka dheefnay kow horta sheyga uu weyn waa calanka soomaali waan haysanaa laakiin calankii maxuu dhalay maskiinka wuxuu dhalay calan kale oo ah dhigiisa calan goboleed oo wato madaxweyne kow waa federaal calankii gobolka maxuu dhalay calan degmooyin oo wato dowladdii kacaanka tartiib anaa idin fasiraay si fiican imaqla kacaanka anaga wuxuu noo dhaafay dhowr shay oo taariikh ah masalan wuxuu ku soo biiriyey dowladda guulwade kow dowladda wuxuu ku soo biiriyey iskaa wax u qabso labo dowladda wuxuu ku soo biiriyey cayaarihii gobolada isdhexgalka arrimaha bulshada gacaankaa noo keenay waana lagu guuleystay waana ku amaanan yahay kow anaga federaalaan ahay anagana maxaan keennay labo magaca waa ka bedelnay hal magacaan u haynaa dowladdeena gacaanka waxay wadatay oo laga cabsan jiray guulwade oo ciidan laga dhigay hub la siiyey saraakiil la siiyey dowladdeena waxay u bedeshay oo hadda xoogaga wadaniyiinta okay maxaa kuu soo horey iskaa wax u qabso maxaa loo bedelay isxilqaan
okay cayaarihii gobolada waa socdaa, calaamadii degmooyinka leh waa socdaan, waa dowladdii hanta wadaagga. markay sababtoo ah dowlad oo ah federaal waxaas firaaqa ma u hayso. cayaar gabalo iskaa wax u qabso iyo waxa ma u hayso. federaal waa federaal, waa shaqayso iyo aan kala shaqaysano. laakiin maanta waxaan u hambalyeynayaa beel ka mid ah beelaha reer xamar oo degaan degmada Shingaani inay samaysteen calanka ku soo dhawaada. horta calanka waa kanahay ku soo aadi kaamarada. inay dhaqatay maanta beeshii ugu horeysay oo samaysatay calankana waxaa ku qoran yahay reer sheikh almakhzuumi soomaali banaadir. waxay saarteen qabrigii awoogooda sheekh cabdulcasiis oo ku yaala degmada cabdulcasiis. calankii soomaali korna waxay ka saareen calankii gobolka banaadir oo ahay gaduud iyo blue. si fiican ifahma, yani calankan waa siyaasad. soomaali waa yihiin iyay ka yihiin gobolka banaadir. waa laba calan, buluga soomaali waaye, gaduudka iyo bulugana waa kii gobolka banaadir. almakhzuumina waxay kiin calankooda. marka waa wax aad iyo aad loogu farxo. marka waxaan u sheegayaa dhammaan qowmiyadda reer xamar wixii hore hala iloobo. sanadkan cusub ku dadaala labadiina degmo si aad u samaysan laheedeen iskaashi. sababtoo ah waa dhammaati beelbeel ama qabiil kuraas lagu qaadanayo. maxaa taqaan aa lagu qaadana. hadda waxay ka dambeeyo dhalinyarada oo waxaan hadlaa dibadda joogo. waxaan idinka codsanaya walaalayaalow inaad isku xirantaan, aada samaysaan wax u tari karo oo hadda lamadeena degmo oo hadda inoo soo hartay si loo badbaadi lahay. marka halkan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan qolkan Shingaani family odayaasha madaxda ka ah ama miibka hayaan. waxaa sharaf weyni ah. berigi hore waxaan arki jiray macluum marka horuu soo sheego daanyeeras iga dhigi kanaas iga dhigi horaa layga tuuri jiray. laakiin hadda sharaf way ogaadeen. waxay sameeyeen dimuqraatic. waxyaabihii oo anshaxa aan ku jirin mid kasto waa laga joojiyey. waa sax oo asluub aleen. laakiin waxyaabaha oo sax ah oo boogta taabanayso way ogolaadeen in la soo deeyo. iyadana sharaf bay ii tahay. warkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahayow addoommadaadaan nahaye docdeena naga ajiib. ilaahayow dalkeena dhibka ka qaad. ilaahayow dalkeena cuduradan iyo waxaan la sheegayo ma xamili karnee ka qaad yaa rabbiyow yaa raxmaanow yaa raxiim. adigaa awooddaas leh, cid kale awood leh ma jirtee. ilaahayow wadankeena nabad ku soo celi. ilaahayow dowlad caadil ah na tusi. inta ka harsan cumrigeena ama cumrigeyga yaa rabbiyow yaa raxmaan yaa raxiim yaa casiis yaa jabaar yaa fataax yaa rasaaq. ilaahayow dadkan dowladda ku jiro ama dadkan ku nool gudaha wadanka
ama meel kasta soomaaliya ay ku nool yihiin ilaahayu xaqa tusi ilaahayu xaqa tusi ilaahayu caqligooda u soo celi yaa rabbiyo addoommadaada nahaye wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilo hagaage